Assalaamu calaykum kusoo dhawaada ardayga filimada. Maanta waxaan doonaynaa inaan idiin sharaxo filim martial artist ah oo lagu magacaabo Ninja Assassin kaas oo soo baxay sanadkii 2009. Ha hilmaamin inaad subscribe nagu caawisid. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa dukaan tattoo oo uu leeyahay nin waaye arag ah. Wuxuu u shaqaynayaa nin dhalinyaro ah oo gaangister ah. kadib nin yar ayaa u keenaya baqshad ciid madow ka buuxdo. Burcadu ma garanayaan waxa ay ka dhigan tahay, balse odaygii ayaa qaboobay naxdin darteed. Wuxuuna daaha ka qaadayaa in ciidda madow ay ka dhigan tahay imaatinka ninjaha u arxanka daran ee dunida soo maray, kuwaas oo uu waa hore la kulmay, isla markaana waxa uu khibrad u leeyahay khatarta ay leeyihiin. Burcadu waxa ay ugu yeedhayaan fulay, balse wuxuu tusinayaa nabar laabta kaga yaala, kaas oo ka dhashay weerar ninja ah. Sababta kaliya ah ee uu nool yahayna waa inuu ku dhashay wadnihiisa oo dhinaca midig ku yaala. Si lama filaan mid ka mid ah ayaa madaxa kala badh laga dhigaya, kadibna silig ayaa ka soo dhacaya saqafka oo kor u jiidaya. Marka dib loo soo tuuro, kaliya qaybo ka mid ah mindhicirkiisa ayaa soo gaaraya dhulka. Ninjuhu mugdiga ayay ku soo dhuumanayaan oo raggan jirkooda iyo xubnahoodaba midmid u googoynayaan. Kadib marka ay qof kastaba dilaan, ayaynu arkaynaa ninjaha oo ka soo baxaya dhinacyada mugdiga ah ee qolka, waxayna dilayaan odaygii. Kadib waxaanu baranaynaa kooxda Ozuno ee Japan. Waa koox ninja ah oo uu hogaamiyo sayidka aan naxariista lahayn ee Ozuno. Kooxdu waxay ka soo ururiyaan carruur adduunka oo dhan, waxayna mariyaan farsamooyin tababar oo istaba joog ah si ay u noqdaan dilaayada ugu halisaysan ee ninja. Waxay caan ka yihiin oo yaqaana hogaamiyeyaasha adduunka, balse waa laga qariyaa inta kale ee adduunka. Cid kasta oo ururkan siisa 100 rodol oo dahab ah, waxa ay kiraysan karaan gacan ku dhiglayaashooda si ay u xaqiijiyaan geerida qofka ay rabaan in ay beegsadaan. Ururka Ozuno in ka badan 100 sano ayuu mugdiga ku shaqaynayay, kana dambeeyay dhimashada qaar badan oo ka mid ah madaxda sare ee caalamka. Qof kasta oo iyaga ka warhaya ayaa ka baqa in uu la kulmo. Mid ka mid ah fadhiyada, Sayid Ozuno waxa uu kooxda inteeda kale u soo bandhigayaa ilmo cusub oo magaciisa la yiraahdo Reizo. Waxa iskaga tagay waalidkii waxaana soo kaxaystay hogaamiyahooda. Ozuno waxa uu ku hanweyn yahay in Reizo uu noqon doono hogaamiyaha ururka isaga dabadiisa. Rajada laga filayo awgeed, tababarka Reizo la marinayo ayaa ah mid aad u adag. Marka uu gaaro 10 jir, waxaynu arkaynaa inuu nabar ku leeyahay jirkiisa oo dhan, kuwaas oo ka yimid ciqaabta khaladaadka uu sameeyo. Mid ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee ninja waa inuu leeyahay awood uu isku qarin karo. Reizo ayaa la amrayaa inuu ku dul socdo sagxad alwaax ah oo cod samaynaysa, laakiin hal cod ayaa keenaya in ul adag cagaha lagala dhaco. Habeenkii waxa ku adkaanaysa in uu seexdo xanuunka dartiis. Kadibna gabadh yar ayaa u imanaysa oo dhayaysa dhaawiciisa. Magaceedu waa Kiriko, waa ninja kale oo la tababarayo. Carruurta waxaa la baraa in aysan yeelan wax dareen ah, laakiin Kiriko way ka duwan tahay. Iyadu ma aaminsana rabshadaha iyo dilalka ururku taageero. Waqtigu si dhaqso ah ayuu soconayaa oo Reizo iyo Kiriko labaduba way korayaan. Ma wada hadlaan, laakiin had iyo jeer dushaas ayay iskala socdaan. Isku soo wada duubo, Reizo ayaa hadda noqday ninkii ugu tayada badnaa ee Ozuno soo tababaro. Si kastaba ha ahaatee, marka lala dagaalansiiyo arday kale oo la dhaho Takeshi, Reizo waa laga badinayaa sababta oo ah taatikada khiyaanada ah ee cadowgiisu isticmaalay. Sayidku wuu ogol yahay taas, beddelkeedana Reizo ayuu ku eedeynayaa daciifnimo. Waxa uu isticmaalayaa farsamada aadka u xanuunka badan ee farta, taasoo sababaysa in Reizo uu la rafto xanuun. Imtixaankiisa ugu dambeeya ayaa ah inuu badbaado habeenka isagoon helin gargaar caafimaad. Marka uu soo laabto subaxdii xigtay, Ozuno wuxuu arkay Reizo oo diyaar u ah tababarka maalinta cusub, wuxuuna ku farxayaa ardaygiisu inuu ku guulaystay imtixaanka. In yar kadib, Reizo waxa uu noqday midka ugu kartida badan ninjaha. Waxa uu garaacayaa qof kasta oo ka soo horjeeda isagoo indhaha ama gacmaha ka xidhan. Kiriko way ku faraxsan tahay, balse dhinaca kale waxa ay nacday habnololeedka Ozuno. Waxa ay marar badan iska indhatiraysaa xeerarka yaryar ee qabiilka. Reizo ayaa u digaya, waxa uuna ka baqayaa in haddii hogaamiyuhu ogaado uu dili doono. Kulan tababar ah waxaa la amrayaa in ay mindi ku dhaawacdo qof ka soo horjeeday. Markii ay awoodi weyday in ay samayso, Ozuno ayaa iyada ka dhaawacaya wejiga oo ku tuuraya qafis. Reizo ayaa si qarsoodi ah ula kulmaya oo cabsiinaya biyo. Dhowr maalmood kadib, markaas oo roob xooggan uu da'ayo habeenkii, Kiriko ayaa fuulaysa darbiga si ay u baxsato. Waxayna ku dhiirigelinaysaa Reizo inuu ku soo biiro, balse waxa uu dooranayaa in uu sii joogo isaga oo doonaya in uu daacad u ahaado qabiilka, mar haddii ay tahay meesha kaliya ee weligii yaqaanay. Ugu dambeyntii, Kiriko waa la qabtay, waana la soo xirayaa si loo dilo. Takeshi ayaa loo idmayaa, sidaasna uu seef wadnaha kaga dhufanaya. Qayb ka mid ah Reizo ayaa maalintaas dhimanaysa, laakiin wuxuu go'aansanayaa inuu daacad u sii ahaado qabiilka. Waxaynu tagaynaa dhowr sano kadib xarunta dhexe ee Europol ee magaalada Berlin. Macallimo dambi baaris oo lagu magacaabo Mika ayaa heshay cadeymo ku saabsan jiritaanka qabiilka, iyadoo aan ka warqabin khatarta ay leedahay xogtani. Waxay u keenaysaa mas'uul ka sarreeya oo la dhaho Maslow. Wuu diidayaa inuu rumaysto in uu jiro urur ninja ah oo sir ah oo dadka aqoonta
aqoonta u leh kaliya ay wax ka og yihiin, balse Mika ayaa tusaysa warbixinada cadeynaya xiriirka ka dhaxeeya lacagaha madaxda adduunka iyo dhimashada shakhsiyaad badan oo la yaqaan. Maslow oo hadda daneynaya ayaa go'aansanaya inuu sii baaro arrintan. Aakhirkiina waxay ogaanayaan in mas'uul sare oo ka tirsanaa KGB lana dhaho Sabaten uu hore warbixino la mid ah ka soo saaray, balse markii shaqadiisii ay bilowday in la aqoonsado ayaa laga tuuray jabadii uu ku shaqayn jiray isagoo lagu sheegay inuu khiyaali aaminsan yahay. ugu dambeynna waa la dilay. Markaas ayaynu arkaynaa in Reiso uu sidoo kale joogo magaalada Berlin isagoo ku nool guri dabaq ah oo hawl gaar ah u joogo. subax walba waxa uu ku tababaranayaa meel biro isku xidhan ah sidii sayidkiisu uu baray. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu tagayaa meherada dharka lagu dhaqo ee xaafadda, waxaanu la kulmayaa haweeney. waxay u muuqataa in ay miskiin tahay, balse isla markiiba waxa uu gartay in ay tahay ninja. labadooda waxaa dhex maraya dagaal adag. in yar kadib waxaynu arkaynaa dhiig ka daadanaya mashiinka dharka lagu dhaqo iyo haweeneyda jirkeedii oo gudaha ku dhex wareegaya. dhanka kale Mika ayaa hore u qaaday tallaabo kale oo baaritaankeeda ah, waxayna u tagaysaa xaaska wakiilkii hore ee loo dilay ka hadalka ururka. islaantu waxay sheegaysaa in ninkeedu ahaa nin geesi ah, laakiin fadeexadeyntiisa kadib wax kastaa way isbedeleen. waxa uu noqday fulay. albaab kasta iyo daaqad kastaba waxa ay lahaayeen ugu yaraan 2 quful. gees kasta oo guriga ka mid ahina si fiican ayuu ugu xiray laydh isagoo aan meel mugdi ah ka tegin si aanay ninjayaashu u helin meel ay ku soo dhuuntaan. habeenada ka mid ah nalka ayaa la gooyay, isagiina waa la dilay. maalintii xigtay iyada oo shaqada ku jirta, mas'uul sare ayaa imanaya xafiiskeeda si uu u qiimeeyo. waxaa cad in uu u joogo inuu isha ku hayo, sababtoo ah dadka ayaa bilaabay inay ka hadlaan in ay aad u xiiseynayso waxyaabo aan qusayn. fiidkaas Mika si taxadar leh ayay gurigeeda u soo laabatay, laakiin waxay ogaatay in koronto la'aan ay ka jirto gebi ahaanba xaafadda. si kastaba ha ahaatee waxa ay gelaysaa gurigeeda mugdiga ah, balse isla markiiba waxaa soo weeraray ninja. si la yaab leh nin kale ayaa badbaadiyay nolosheeda, wuxuuna dilayaa gacan ku dhiiglayaashii. ninka badbaadiyay cid kale ma ahan ee waa Reiso. xasuus kale ayaana tusaysa Reiso oo weyn kuna jira hawshiisa ah dhammaystirka dilkiisii ugu horreeyay. wuxuu ku burburinayaa cadhadiisii oo dhan, wuxuuna si naxariis darro ah u dilayaa bartilmaameedkiisa. kadib markii uu u yimid saqafka sare si uu la kulmo inta kale ee qabiilka, Osuno ayaa sheegay in uu ku faanayo Reiso, wuxuuna ugu yeedhayaa dilka gabadh yar. Reiso ayaa si yaab leh hubkiisa kaga jeexaya wejiga iyo isha Osuno. ninjayaasha kale ayaa soo weeraraya oo ka tuuraya dhismaha kadib markii ay si xun u dhaawacaan. Reiso ayaa si dirqi ah uga badbaadaya dhimashada isaga oo ku dhacaya meel biyo ah. kadib tan iyo markii uu soo kabsaday, waxa uu ka shaqaynayay ka hortagga qabiilka iyo faragelinta dhammaan dilalka Osuno, waana isla sababtaas ta uu u badbaadiyay nafta Mika. waxay tagayaan hotel si ay dharka u bedeshaan, waayo ninjaha ayaa adeegsada farsamo urin gaar ah si ay ula socdaan hadafkooda. markaas ayay Maslow u diraysaa telefoon una sheegaysaa in ay la joogto Reiso. Maslow waxaa lagu amrayaa inuu soo qabto Reiso isla marka uu arko. wuu og yahay in Reiso aanu ahayn hadafkooda koowaad, balse waa inuu hoggaansamo amarada si uu naftiisa u badbaadiyo. marka ay saddexdoodu kulmaan si ay uga tashadaan tallaabada xigta ee qorshahooda, ayaa Reiso waxaa hareereynaya boolis oo xidhaya. waxaa la geynayaa meel qarsoon, waxaana lagu xidhayaa qol gaar ah. Mika waxay ogaanaysaa in Maslow uu xidhay Reiso isagoo ka xun, balse waxa uu weli diidayaa inuu sii daayo, sababtoo ah xabsiga ayaa ah meesha kaliya ee uu ku badbaadi karo Reiso. habeenkii Mika ayaa u tagaysa oo biyo siinaysa. Reiso wuxuu fursad uga faa'iideysanayaa in uu u sheego in gacan ku dhiiglayaashii ninja ay soo gaari karaan xilli kasta. Mika inkasta oo ay isku dayayso inay u digto Maslow, laakiin aad bay u daahday, korontada ayaana tagaysa. ninjayaashu waxay ka soo baxayaan mugdiga, xitaa iyagoo wata hubka ugu horumarsan. askarta ayaa muujinaya inay ka daciifsan yihiin ninjaha. Mika ayaa ka furaysa silsiladaha gacmaha Reiso in yar ka hor inta aan la isku dayin in la dilo. wuxuu la dagaalamayaa ninjayaasha kale, wuxuuna u sheegayaa Mika inay baxsato maadaama uusan badbaadin karin. Reiso waa kan ugu fiican ardayda qabiilka Osuno weligiis soo mara, laakiin ka hortagidda koox dhan oo ninja ah ayaa ku adag. aakhirkii isaga iyo Takeshi wadada ayay isku dilayaan. Takeshi waxa uu soo qaadanayaa seeftiisa si uu nolosha Reiso u soo afjaro, laakiin Mika ayaa waqtiga ku haboon imanaysa oo ku dhufanaysa gaadhigeeda. waxay u kaxaynaysaa hotel. inkasta oo uu dhaawac culus soo gaaray, haddana waxa uu diidayaa in uu dhakhtarka tago. waxay ag fadhiisatay isaga oo la hadlaysaa isaga oo miyir daboolan. waxay ka cudur daaranaysaa in aanay waxba u tari karin, ugana mahadcelinaysaa badbaadinta nolosheeda. kadib waxa ay soo qabanaysaa qalab uu Maslow ku ogaanayo halka ay ku sugan yihiin. ka hor inta aan boolisku u iman, ayaa gacan ku dhiiglayaashii ninja ka soo muuqanayaan meel walba, waxayna afduubanayaan Reiso. markii boolisku yimaadaan, waxay helayaan Mika oo fadhida fadhiga. waxay u sheegaysaa in Reiso la afduubtay 10 daqiiqo ka hor. waxaa dib
dib loogu celinayaa saldhigga qabiilka. Reiso ayaa loo keenayaa macalinkiisii Ozunu. Wuxuu siinayaa fursadii ugu dambeysay oo uu ku raali geliyo, laakiin Reiso ayaa diidaya. Ozunu ayaa aad uga cadhoonaya waayo mar wuxuu aaminsanaa in Reiso uu bedeli doono oo uu booskiisa sayidka qabiilka kala wareegayo. Waxa uu ku xirayaa Reiso isla meeshii Kiriko lagu dilay. Kadib waxa uu 3 jeer u isticmaalayaa farsamada gacan ku mudidda. Farsamadan dadka badankiisa hal mar haddii lagu dhufto way dhintaan, laakiin Reiso kaliya waxa uu matagayaa dhiig iyo sidoo kale qalab GPS ah. Ka hor inta aysan ninjayaashu ka falcelin, Mika oo wadata ciidamo boolis ah ayaa gudaha u soo galaysa dhismaha. Rag badan oo ninja ah ayaa lagu dilayaa walxaha qarxa sababtoo ah mugdi ay isku qariyaan ma jiro. Dagaalka dad badan oo ka soo jeeda labada dhinacba ayaa lagu dilayaa. Reiso waxay iska hor imanayaan Takeshi iyo kooxdiisa. Inkastoo dagaalku uusan isu dheelitirnayn, haddana wuxuu dilayaa iyaga oo dhan, wuxuuna sugayaa weerarka Takeshi. Waxaa dhex maraya dagaal adag kaasoo ku dhamaanaya in gacmaha iyo madaxa Takeshi laga jaro. Hadda qofka kaliya ee Reiso u haray inuu wajaho waa sayidkiisii hore ee Ozunu. Waxa uu ka helayaa qolka dhexdiisa odayga oo si degan u fadhiya iyadoo dadku ay ku dhimanayaan banaanka. Sayidku waxa uu muujinayaa khibradiisa isagoo si lama filaan ah isu qarinaya, kadibna ka soo baxaya hadhka Reiso ka dambeeya. Kaliya hal gacan ayuu ku riixayaa waxaana ku tuurayaa qol kale. Markaas ayay labadooduba la soo baxayaan seeftooda, waxayna galayaan dagaal seefeed adag. Ozunu waxa uu siinayaa fursad kale oo uu ku raali geliyo isagoo sheeganaya in uu yahay aabihiis, balse Reiso ayaa ku jawaabaya in aanu qofna ahayn aabihiis. Daqiiqada uu dilo Ozununa ay noqonayso neeftiisii ugu horeysay ee noloshiisa. Labadooduba way isku soo ordayaan, laakiin Ozunu ayaa mar kale si lama filaan ah u qarsoomaya. Mika ayaa u soo galaysa qolka iyadoo rajaynaysa inay caawiso Reiso. Si kastaba ha ahaatee, Ozunu ayaa ka soo baxaya dabadeeda, wuxuuna ku weerarayaa seef kagana dhufanaya wadnaha. Dagaalka waxaa ku gacan sarreeya Ozunu ilaa Reiso uu ciyaaro isla khiyaanadiisii isagoo si isdaba joog ah uga soo muuqanaya mugdiga. Gabagabadii Ozunu waxaa lagu dilayaa seef garabka uu Reiso kaga dhuftay, kadibna madaxa ayuu ka jarayaa. Wuxuu banaanka u soo qaadayaa Mika waxaana u soo gurmanaya dhaqaatiirta caafimaadka. Waxaa soo baxaysa inay sidoo kale ku dhalatay wadnaha oo dhanka midig kaga yaala, taasoo la macno ah inay badbaadi doonto. Filimka dhammaadkiisa Reiso ayaa ka soo baxaya oo ku dul istaagaya gidaarka akaadamiyadda ninjaha sidii Kiriko oo kale. Subscribe si aad u hesho muuqaalo badan oo sidan oo kale ah. Daar ogeysiisyada oo like saar si aad channelka uga caawiso inuu koro. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.